qaybta koowaad ha murugoon. waxaad dhahdaa yaa allah, dhibaatadaadu si walba oo ay u weyn tahay waxaad haysataa alla weyn oo kaa saaraya dhibaatadaas. gacmaha u taago oo isaga u dhawaaq, ma jirto awood ka saraysa ducada, sababtoo ah waxaad xiriir la samaynaysaa midka adduunka iyo cirka iska leh, midka u beddeli kara dhibaatooyinkaaga oo dhan xal, xanuunadaada oo dhan caafimaad, ilintaada oo dhan dhoolacadayn, riyooyinkaaga oo dhan suurtagal. waa kuma midka dhibaataysan marka uu gacanta u taagto ka fayda dhibaatada? waa kuma midka ku siin kara farxad, deganaansho, raaxo aad ka dareentid qalbiga? waa kuma midka gacmihiisa ay ku jiraan adduunka oo dhan oo aanan cidna ka saraynin, wax walba uu rabana ka dhacaya adduunkan? waa allah. allah wuu kuu jeedaa, allah wuu ku maqlaa, allah qalbigaaga waxa ku jira ayuu og yahay. haddii murugta ay kuugu siyaado, fiiri samadda sida ay u weyn tahay, iyo allaha samaddaas abuuray in ay xaaladaada ka qoorsoonayn, kadibna dhoola cadeey. naxariista alle marna ha ka quusan inta aad nooshahay. haddii uu adduunka oo dhan ciriiri kuugu noqdo oo aad dareentid culays sida adduunka oo dhan in dushaada la saara oo kale, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii aad dareentid murug, cabsi, walwal iyo walbahaar oo aad weydid waddo aad murugtaas ugu baxdid, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii lagugu imtixaanay jiro aadan habeenkii seexanaynin ilaa adiga oo xanuunsan subaxdii marka aad soo kacdid la kacayo adiga oo ku haya xanuun, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii wax kasta kaa qaldamaan oo qorsho walba oo aad samaysay kuu shaqayn waayo, waddada aad ku socoto kula noqoto buur aad korayso, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii lagugu leeyahay dayn oo maalin walba aad ka fakaraysid dayntaas iyo sida aad u dhiibi lahayd, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii lagu dulmiyo oo lagugu xadgudbo, maalin walba lagu dhibaateeyo oo been lagaa sheegayo, laguna xamanayo, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii aad si fudud u weydo wixii aad muddo badan ku soo tabacaysay, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii lagugu tuhmo wax aadan geysan, dadka oo dhanna isugu markhaati furaan in aad samaysay, waxaad dhahdaa yaa allah. haddii aad weydid hooyada, carruurtaada, xaaskaaga, gurigaaga, shaqadaada iyo waxbarashadaada, waxaad dhahdaa yaa allah. allah wuxuu leeyahay addoommadayda waan u dhowahay waana ka aqbalaa ducada marka ay wax i weyddiistaan. mar walba aad dhib dareentid gacmahaaga samadda u taago, waxaad dhahdaa oo aad ku celcelisaa ilaahayow, aniga waxaa i taabtay dhib, adigana waxaad tahay mid naxariis badan. ilaahayow, xaaladda aan ku suganahay waad u jeeddaa, adiga ayaana iga bixin kara xaaladdan. ilaahayow iga bixi oo qalbiga ii qabooji. ilaahayow waxaan dulmiyey naftayda, haddii aadan ii dembi dhaafin oo aadan ii naxariisan, waxaan ahaanayaa kuwa khasaaray. ilaahayow ka yeel indhahayga kuwa arka waxa wanaagsan, carabkayga mid khayr ku hadla, gacantayda mid dadka u gargaarta, qalbigayga mid cafis badan, naftayda mid ku mashquusha wax faa'iido leh. ilaahayow ii rumay riyadayda, ii iftiimi mustaqbalkayga, i gaarsii guul, ii barakay wakhtigayga. ilaahayow isii sabar iyo adkaysi marka wixii aan qorshaystay u shaqayn waayaan sidii aan u rabay. ilaahayow adiga ayaa garanaya wixii ii wanaagsan, igu caawi in aan aqbalo qadarta iyo wixii aad ii qortay. ilaahayow waxaa i taabtay dhib, adigana waxaa tahay rabbi naxariista. nebi ayuub waxa alle uu siiyey 14 carruur, xaas fiican iyo xoolo badan. waxa uu lahaa dad badan oo u adeega kana shaqeeya hantidiisa. waxa kale uu lahaa beero waaweyn oo ay ka baxaan dhammaan qudrado kala duwan, waxaana u dheeraa intaas nebinimo iyo cibaado badan. waa nolol raaxo leh oo qof kasta hamiyo inuu ku noolaado. muddo 70 sano ah ayuu ku noolaa nimco iyo barwaaqo. nebi ayuub xaaladdiisa hal mar ayay isbeddeshay. waxa ku dhacay xanuun oo uu la kici waayey, kadibna xoolihii iyo shaqaalihii ayaa ka baxay. sidoo kale waxaa
ka geeriyooday dhammaan carruurtii uu dhalay oo mid u dhintay. waxaa ehelkiisa ka soo haray xaaskiisa oo ahayd xaas fiican, waxayna noqotay gabar faqiirad ah. waxay dantii ku kaliftay inay shaqo tagto oo ay ka khidmayso guryaha si ay u hesho nolol maalmeedkeeda. nebi ayuub wuu sabray, wuxuu ahaa qof aan ka caajisin dikriga alleh. nebi ayuub jirkiisa qayb ka mid ah ayaa marba go'aysay, dadkii oo dhan way ka tegeen marka laga reebo xaaskiisa oo iyadu ku mashquushay daryeelkiisa iyo cuntasiintiisa. maalin maalmaha ka mid ah ayaa xaaskiisa ku dhahday nebi ayuub, maxaad alla u weyddiisan weyday in uu dhibta kaa qaado? nebi ayuub waxa uu ku dhahay, ma xasuusataa inta sane ee aan caafimaadka qabay, xoolana haystay? xaaskiisa waxay dhahday, haa, 70 sano ayaad caafimaad qabtay oo ku noolayd nolol barwaaqo leh. wuxuu dhahay nebi ayuub, alle waxa uu ii barwaaqeeyey 70 sano, miyaanan dhibka u samraynin 70 sano oo kale? nebi ayuub waxa uu sabray muddo dhan 18 sano oo dhibtu marba marka ka dambaysa ay ku sii kordhaysay. ugu dambayntii xaaskiisa waxaa loo diiday shaqadii, dadkiina albaabada ayay ka soo xirteen. kadib markii ay aragtay in aanan wax cunto ah haynin, ayay iska jartay timaheedii oo iibgeysay. markaas ayay ku soo gaday cunto si ay ninkeedii u siiso. cuntadii ayay u keentay nebi ayuub. markaas ayuu weyddiiyey xaaskiisa meeshii ay ka keentay cuntada, sababtoo ah wuxuu ogaa in shaqadii loo diiday. xaaskiisa ma rabin in ay u sheegto, laakiin nebi ayuub wuu ku adkaystay, waana ku celceliyey. kadibna way u sheegtay in ay gaday timaheedii. nebi ayuub markii uu arkay in dhibtii meel aad u xun gaartay, ayuu samada fiiriyey oo alle u dhawaaqay. wuxuu yidhi, allow, dhib ayaa i taabatay, adigana waxaad tahay rabbi naxariista. markii uu dhibaatadaasi u sheegtay, allah ayaa farajka u yimid. alle wuu caafiyey, farxad ayuu ugu beddelay. waxaa alla qadaray inay xaaskiisa da'yaraato oo dhallinyaro ay ku noqdaan labadooda. sidoo kale alle wuxuu u soo celiyey carruurtooda, beerihii iyo shaqaalihii dhammaantood. miyay ku soo gaartay dhibaatadaas oo kale oo gaartay nebi ayuub 18 sano oo dhibaato ah? miyaad wayday dhammaan carruurtaada? miyaad wayday dhammaan hantidaada? miyaad wayday dhammaan caafimaadkaaga? miyay kaa tageen dadka oo dhan? maxaad la murugoonaysaa marka? nolosha miyaad nacday? dad badan ayaa jiro xanuunsan oo isbitaallada jiifa oo ay ku xihan tahay oksijiin. neefta wax kasta ayay ku bixinayaan si ay u sii noolaadaan. lacag badan oo aadan haysan miyaad ka murugaysan tahay? dadka adduunka ugu badan waa dad aan wax haysan. qaar badan waxay ku nool yihiin $1 wax ka yar maalintii. qof ayaa war kaa sheegay ayaa la murugaysan tahay miya? qaar baa xorriyaddoodii waayay oo xabsiga dhex jiifa. ma qof aad jeclayd ayaa kaa tegay oo la murugoonaysaa? ma og tahay in 7 bilyan oo qof adduunkan ay ku nool yihiin? haddaba sida nebi ayuub oo kale gacmahaaga samada u taago, waxaad dhahdaa, ilaahayow, iga qaad dhibaatada, adiga ayaa arrintaas awooda. shalay, maanta iyo berito. noloshu way qurux badan tahay ee ku raaxayso. waa hadiyad qaali ah, hana ka murugoon shalay, waayo waa la soo dhaafay. hana ka welwelin beri, waayo lama gaarin. ka feker maanta, kana dhigo maalin qurux badan. shalay in laga murugoodo wixii tegey, wakhtiga ayuu kaa khasaarinayaa. wixii tegey waa taariikh, ma tirtiri kartid, waxna kama bedeli kartid. waxay ahaayeen wax qoran, sabab ayayna ku dhaceen. bilow nolol cusub. iska ilow wixii aad soo martay, wixii ku dhaawacay, wixii ku dhibaateeyey. shaqo aad weyday, guri kaa gubtay, xiriir kaa xumaaday, nin kaa tegey, habeenay ku khiyaantay. dhammaan iska ilow, sababtoo ah ma soo celin kartid, way dhammaadeen. qofka maanta oo dhan ka murugoonaya wixii tegey waa qof raba in uu ilmaha la dhalay ku celiyo caloosha hooyada, elinta oohintana ku celiyo isha.
maalintii ku celiyo habeen la soo dhaafay suurtagal ma ahan ee noolow hadda kuna raaxayso iskana ilow wixii tegey waa tegey fikirka ah waxaa fiicnaan lahayd haddii aan sidaas samayn lahaa iyo maxaan sidaas u sameeyey kuma caawinayso ee waxay kuugu mashquulinaysaa fakar aan xal lahayn nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay haddii ay kuugu dhacdo arrin ha dhihin haddii aan sidaas iyo sidaas samayn lahaa laakiinse waxaad dhahdaa qadara allaahu wamaa shaa'a facal hadalka haddii waxay kuugu furaysaa shaqooyinka shaytaan waa in aad kala doorataa in aad hore u socoto oo nolol cusub bilowdo iyo in aad ku noolaato xasuus wixii aad soo martay iyo ka sheekayn taariikh tagtay taas waa go'aan adiga keli ah aad gaari karto marnaba gacantaada ha ku baabi'inin noloshaada waxaad u baahan tahay in aad bilowdo nolol cusub ka bilowdo meesha aad joogto ku bilowdo waxa aad haysato waxaad u baahan tahay in maskaxdaada ka masaxdo maalmo mugdi ah oo aad soo martay si aad ugu diyaariso maalmo nuur badan waxaad u baahan tahay in aad nafta ku mashquuliso wax khayr kuu ah wax dan kuugu jirto wax horumar kuu horseedi kara waxaad u baahan tahay in aad nafta ka ilaaliso firaaqo badan iyo caajis hana iloobin waxa soo socda ayaa ka wanaagsan wixii tegey mid marna ha iloobin casharkii aad ka baratay shalay si aysan mar kale kuugu dhicin ha ka murugoon wixii tegey oo adduunyo ah sababtoo ah alle ayaa xikmaddiisa kuugu siiyey inta aad haysatid ee dheh alxamdulilaah maanta noolow hadda sababtoo ah noloshaada dhabta ah waa hadda xilligan aad nooshahay xilligan aad aqrinaysid buuggan lagama yaabo in aad ku raaxaysatid noloshaada haddii aad ka murugoonaysid wixii tegey ama aad ka fakarayso waxa soo socda waxa aad nafsadaada u sheegtaa in hadda aad nooshahay oo maanta keli ah aad haysatid hadda ku dadaal salaada qur'aan akhriska sadaqada iyo dhammaan wax walba oo alle uu jecel yahay kuna qurxi maalintaada jacayl naxariis iyo dhoola caddayn qurux badan ugu noolow maalintaada sidii iyadoo ah maalintii kuugu dambaysay noloshaada maalin walba oo ku soo marta waa maalin cusub ee ka faa'iidayso sababtoo ah ma soo laabanayso mar kale noloshu waa hadda lagu daray hadda waa nolol wixii tegey waa xasuus ku jirta maskaxdaada oo ahaa haddadii la soo dhaafayey ma ahan wax la taaban karo sidoo kale waxa soo socda waa sabir ku jira maskaxdaada oo aad ku riyoonaysid isaguna ma ahan wax la taaban karo oo xaqiiq ah waa haddada soo socda waxa keliya ee aad haysatid waa maanta waa saacaddan waa daqiiqaddan waa hadda ayaad maamuli kartaa hadda ayaa gacmahaaga ku jira haddii aad hadda si fiican ugu faa'iidaysatid waxaad haysataa hadhow xasuus qurux badan nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi haddii aad waabariisatid ha sugin galabtii haddii aad galabaysatidna ha sugin subaxda berito ha ka welwelin in badan waxa kaa maqan ee mustaqbalka ah alle ayaa garanaya waxaa dhici doona xoogga saar in aad wanaajiso maanta iyo waxa aad haysato ha ka horumarin maalmaha ma waxaad rabtaa in aad cuntid tufaax aanan soo bixin berita ma ahan wax la taaban karo oo xaqiiq ah marka maxaad ugu murugoonaysaa maalin aanan qoraxdeeda soo bixin ha ka murugoon waxa soo socda oo aadan ogayn in aad noolaanayso iyo in kale talada rabbigaaga u dhiibo xasuusnow inaan cidna kuu diidi karin wixii laguu qoray nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi ogow haddii ummadda oo dhan isugu tagto in ay wax kuu tarto waxaan alle kuu qorin kuuma qaban karaan haddii ay isugu tagaan in ay dhib ku gaarsiiyaan kuma gaarsiin karaan waxaan laguu qorin ogow in nafi aysan dunidan ka tegayn ilaa ay ka dhammaysato wixii alle u qoray haddii ay tahay risqi hanti caafimaad carruur lamaane iyo nolol wanaagsan mustaqbalkaagu waxay gacanta ugu jirtaa rabbigaaga og xaaladaada wuu kuu naxariistay xilli
uu ku abuuray adduunka ayuu ku keenay wax kasta oo dunidan ku jira adiga ayuu kuu abuuray nimco kasta oo hadda aad haysatidna isaga ayaa ku siiyey marka soo ma ahan in rabbi kasta agtiisa aad ka sugto mustaqbal wanaagsan alla wuxuu jecel yahay kuwa tala saarta ha murugoon ha ku dhuminin wakhtigaaga tirinta dhibaatada yaysan kuu muuqan keliya waxyaabaha aadan haysan xasuuso oo ku mahadceli nimcooyinka alla ku siiyey ha murugoon murugtu waxay ku soo xasuusinaysaa wixii tegey waxayna kaa cabsigelinaysaa waxa soo socda maalintaada oo dhan way baabi'inaysaa ha murugoon murugtu waa wakhti lumis waxba ma bedeli karo wuxuu wareerinayaa maskaxdaada wuxuuna kaa xadayaa farxaddaada ha murugoon habeen kasta oo mugdi ah waxaa ka dambeeya maalin iftiin badan culays waxaa ka dambeeya waa fudayd ha murugoon xanuunka waa laga caafimaadi dhibaatadu way dhammaanaysaa dunuubta waa la dhaafayaa daynta waa la bixinayaa qofka maqanna wuu imaanayaa qaladkana waa la saxayaa ha murugoon waxaad leedahay laba indhood aad wax ku aragtid laba dhagood aad wax ku maqashid laba lugood aad ku socotid laba gacmood oo aad wax ku qabatid meel aad seexatid maskax aad ku fakartid qalbi aad wax ku dareentid haddii aad tirisaan nicmada alle ma koobi kartaan ha murugoon nolosha wixii lagugu talgalay waad helaysaa xitaa haddii ay laba buur hoostooda ku jiraan wixii aan lagugu talagelin ma helaysid xitaa haddii ay ku jiraan labadaada bishimood dhexdooda ha murugoon sababtoo ah murugta ma joojin karo wax aadan jeclayn in ay dhacaan waxa uu kaa joojinayaa in aad ku raaxaysatid wanaagga aad haysato ha ka murugoon in alle ducadaada ku aqbali waayey xaqiiqdii alle ayaa garanaya wixii khayr kuugu jiro qorshihiisa ayaana ugu wanaagsan ha murugoon sababtoo ah murugta wuxuu keenayaa cunto xumo hurdo la'aan madax xanuun badan iyo miisaanka jirkaaga in uu lumo isla markaasna farxadda iyo fircoonidaada aad weysid ha murugoon haddii aadan joogin meeshii aad rabtay alla ayaa garanaya meeshii kuu roon samir kuna qanacsanow meesha aad joogto ha murugoon xilligan oo aad neefsatay adiga oo caafimaad qaba qof ayaa qaatay neeftiisa u dambaysay oo adduunka ka tegey ha murugoon haddii guuldaro iyo fashil ku soo gaaray ku farax in aad cashar ka baratay ogow in qof kasta oo guulaystay uu soo maray guuldarooyin badan ha murugoon haddii aysan dadka ku jecleen adiga naftaada jeclow ha isu beddelin hana iska dhigin qof aadan ahayn si dadka kale ay ku jeclaadaan ha murugoon waxa alle kuu doortay ayaa ka wanaagsan waxa aad dooratid ha ka murugoon wax aadan awood u lahayn in aad xakamayso alla ma saarin garbahaaga culays aadan xamili karin dhibaatada adduunka oo dhan mas-uul kama tihid ha ka murugoonin wixii tegey waxa soo socda ayaa ka qurux badan hana ku mashquulin naftaada albaab soo xirmay ee ishaada waa inay qabataa albaabada kale ee furan ha ka murugoon haddii qofka aad adduunka ugu jeclayd kuu caddeeyo in aadan agtiisa wax qiimo ah ku lahayn sababtoo ah waxa uu kuu baneeyey waddada si aad u aragto qof isaga ka wanaagsan oo ka muhiimsan oo ka fadli badan abuubakarow ha murugoon alla ayaa nala jira ha murugoon oo waxaad soo xasuusataa markii nebiga sala allahu calayhi wasallam uu ku yidhi abuubakarow ha murugoon welwelka iska fogeey sababtoo ah alla ayaa nala jira abuubakarow madaxaaga kor u qaad niyaddaada deji qalbigaaga qabooji sababtoo ah alla ayaa nala jira abuubakarow ku bishaarayso guul nasrigana sug sababtoo ah alla ayaa nala jira abuubakarow beri fariinta aan sidno waa sare maraysaa dacwadeedana way soo muuqanaysaa kelmaddeedana waa la maqli doonaa sababtoo ah alla ayaa nala jira abuubakarow beri dadka adduunka ku nool way maqli doonaan quruxda aadaankeena raxmaanka hadalkiisa iyo codka quruxda badan ee qur'aanka sababtoo ah alla ayaa nala jira daawada murugta
waxaan halkan kuugu soo gudbinayaa 10 arrimood haddii aad la timaadid murug iyo dhibaato walba aad uga bixi kartid. midka koowaad, tuko 2 ragcadood oo xiriir la sameey Allah. nabiga sallallahu alayhi wasallam haddii ay murug qabato wuxuu u istaagi jiray salaada, markaas ayuu dareemi jiray raaxo. Allah wuxuu leeyahay kaalmaysta sabarka iyo salaada. midka labaad, xuska alle ayay quluubtu ku xasilaan. badi dikriga Allah si uu qalbigaaga u dego, nafsadaada u faraxdo. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay qofkii joogteeya istighfaarta wuxuu alle ugu yeelaa hammi walba faraj, ciriiri walba meel loogu baxo, wuxuu ku arsaaqaa meel uusan ka filanayn. iyo ducada nabi yuunis, laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin, waa furaha farxadda ee allana siiyey. hana iloobin adkaarta subaxdii iyo galabtii, kuna celceli xasbuna allah wa nicma alwakiil. midka saddexaad, waxaad qalbigaaga ku qaboojisaa aayadda alle, naguma dhaco wax alla noo qoray mooye. markaas ayaad dareemaysaa waxa alle kuu doortay in ay ka wanaagsan tahay wax adiga aad dooratay. iyo xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam, waxaa la yaab ah arrinka qofka mu'minka ah, arrimihiisa oo dhan waa khayr. waxay gooni u tahay ruuxa mu'minka oo keliya haddii uu la kulmo wax wanaagsan wuu farxaa oo wuu ku mahadnaqaa. haddii dhibaato ku dhacdana wuu ku sabraa, waxayna u noqotaa khayr. midka afaraad, alla dembi dhaaf weydiiso. nin ayaa maalin u yimid xasan albasriy, wuxuu ka cabanayay roob nooma di'in maalmahan, abaar daran baana haysta. wuxuu ugu jawaabay alla dembi dhaaf weydiista. nin kale ayaa u yimid, waxaana uu ku yidhi waxaan ka cabanayaa faqri, waxaan ahay qof aan waxba haysan. wuxuu ugu jawaabay alla dembi dhaaf weydiiso. kadib nin kale ayaa u yimid, waxa uuna ku yidhi xaaskayga dhowr sano ayaan wada joognaa, wax carruur ama dhalin. wuxuu ugu jawaabay alla dembi dhaaf weydiiso. dad meesha joogay ayaa weydiiyey, mar kasta oo qof cabasho kuula yimaado waxaad siinaysaa hal waano oo ah in ay alla dembi dhaaf weydiistaan keliya. xasan albasri waxa uu ku yidhi, miyaydaan maqlin hadalkii allaah uu qur'aanka inoogu sheegay marka uu ka waramayay nebi nuux? waxaan ku dhahay dembi dhaaf weydiista rabbigiin, isaga ayaa dembi dhaafid badan. wuxuu u diray samadda roob aan kala go'ayn, wuxuu idin kordhinayaa xoolo iyo carruur, wuxuu idin yeelayaa jannooyin beero waaweyn, wuxuu idin yeelayaa webiyaal socda. waxaadna xasuusata aayadda alle oo ahayd, alla ma ciqaabayo ilaa inta ay dembi dhaaf dalbanayaan. midka shanaad, alla ka cabsi. alle wuxuu qur'aanka ku yidhi ruuxii alla ka cabsada wuxuu u furi faraj, wuxuuna ka irsaaqi meel uusan ka filanayn. qofkii alla tala saartana waa ku filan yahay. midka lixaad, u sheeg naftaada waxyaabaha aad ka welwelsan tahay. markii aad naftaada u sheegto oo aad sharaxdid dhibta ku haysta, aadna qortid, waxaad ogaan kartaa markaas tallaabooyinka ugu wanaagsan ee aad qaadi karto si aad u xaliso welwelkii aad qabtay. midka toddobaad, raadi xalka. ogow in dhibaato walba ay leedahay xal. raadi xalka kuna dhaqaaq samayntiisa. sidoo kale isku day in aad la wadaagtid asxaab. taas waxay kuu suurtogelinaysaa in aad hesho xal badan oo kaa maqnaa. midka sideedaad, wax ka baro. dadka qaarkood waxay la yaabaan ama isweydiiyaan sababta dhibaatada ugu soo noqnoqonayso. ma oga in imtixaanka iyo casharada la soo celceliyo ilaa qofka wax ka barto ama wax ku qaato. midka sagaalaad, u sheeg saaxiib. haddii fakarkaagu bato, raadi saaxiib aad ku kalsoon tahay una sheeg dareenkaaga. qofka oo dareenadiisa qarsada waxay u keeni kartaa cudurro badan. isku day in aad ka hadashid dareemahaaga, laakiin saaxiibkaaga waa inuu ahaado saaxiib wanaagsan oo murugtaada murugtiisa ah ku fahmaya, kula fakaraya. midka tobanaad, hagaaji fakarkaaga. ka fakara waxyaabaha aad haysatid inta aadan ka fakarin waxyaabaha kaa maqan.
nafsadaada u sheeg in ay jiraan boqolaal arrimood oo alle aanan kaa qaadin. ha ka fakerin oo keliya arrinta kaa maqan si aadan u murugoon. dheh alxamdulilaah. in dhibaato ka sii daran ku haysan, mar walba soo xasuusa in ay jiraan dad adiga kaa daran. ku dadaal arrimahan. iska xir albaab walba oo murug sababi karta. ha samayn dembi, sababtoo ah waxaa lagu helaa nolol ciriiri ah. ka fogow waxyaalaha negatifka ah. iska ilaali kelinimada. isku dhaafin murugadaada in aad wakhti la qaadatid dadku jecel. hel nasiino iyo hurdo kugu filan. biyo badan cab. u dhoola caday murugta. xaqiiqso culays walba waxaa ka dambeeya fudayd. ha iloobin adkaarta subaxdii iyo galabtii. wax ka baqa qisadii nebi yuusuf. aqri suuratu yuusuf. qaabka xalinta dhibaatooyinka. ka jawaab su'aalahan si aad awood ugu yeelatid xalinta dhibaato walba oo ku haysata, nooc kasta oo uu yahay. su'aasha koowaad, waxaad qeexdaa dhibaatada ku haysata. su'aasha labaad, halkee ayay asal ahaan ka timid dhibaatada? su'aasha saddexaad, maxaa ka sii dhib badnaan lahayd haddii uu kugu dhici lahaa? midka afaraad, qor waxyaabaha aad ku xalin kartid dhibaatada. kadibna dooro xalka ugu fiican ee aad ku xalin karto dhibaatada, kadibna dhaqangeli arrintaas. ducada murugta. ducada murugta iyo daynta uu nebiga sala allahu calayhi wasallam bixiyey ayaan waxaan soo geliyey baraha bulshada. waxaa daawaday in ka badan malaayiin qof. dad aad u badan ayaa ila soo xiriiray iyaga oo dhahaya, waxaan aqriyey ducadan, alla murugteeda iyo dhibaato walba i haysay wuu iga qaaday. maalin walba waan aqriyaa, noloshayduna way ka qurux badnaatay sidii hore. ducadaasoo ah, maalin ayaa masaajidka waxaa soo galay nebiga sala allahu calayhi wasallam. wuxuu arkay saxaabi ansaari ah oo fadhiya masaajidka. wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasallam weydiiyey saxaabigii, maxaa ku fadhiisiyey masaajidka? ma ahan xilligan xilliga salaada. wuxuu yidhi saxaabigii, rasuulka ilaahayow, murug badan ayaa i taabatay, dayn ayaa igu badatay. waxa uu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasallam, ma ku baraa duco haddii aad aqriso ilaahay kaa qaadayo murugta, dayntana kaa gudayo? waxa uu dhahay saxaabigii, haa rasuulka ilaahayow. nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu dhahay, waxaad dhahdaa subaxdii iyo galabtii, allaahumma innii acuudu bika min alhammi waalxasan, وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. wuxuu dhahay saxaabigii, waan aqriyey, ilaahay wuu iga dulqaaday murugtii aan dareemayey iyo dayntiina wuu iga bixiyey. haddaba ku celceli ducooyinkan oo dhammaan daawo u ah murugta, welwelka, cabsida iyo dhibaato walba ku qabsata. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله wuxuu ku abuuray farxad. الله wuxuu inoo abuuray waa farxad, in aan noqono dad faraxsan. jannada ayaana marka ugu horeeyo nala dejiyey, kadibna waana la imtixaanay. imtixaankaasna wuxuu sababay in nebi aadan jannada laga saaro oo adduunka la soo dejiyo. laakiin alle wuxuu rabay in aan farxaddaas ku sii jirno. wuxuu inoo soo diray nebiyaal iyo manhaj, kutubo. haddii aan raacno, aan ku noolaanayno nolol farxad badan inta aanan aadin farxadda dhabta ah ee jannada. alle wuxuu ku yidhi nebi aadan, ka hoobta jannada dhammaantiin. haddii uu idinka yimaado xaggayga hanuun, qofkii raaca hanuunka, cabsi korkiisa ma ahaato iyo murug midna. wuxuu ku noolaanayaa nolol qurux badan oo wanaagsan, sidata farxad,
deganaan, raynrayn iyo wix la mid ah. diinta farxadda, diinteennu ma aysanna amrin oo keliya in aan salaada tukano ama aan soonno, laakiin sidoo kale wuxuu alla na amray in aan faraxno. hadafka cibaadada oo dhan waxay tahay in aan noqono dad faraxsan oo ku noolaada nolol wanaagsan. alle wuxuu leeyahay, waxaad dhahdaa fadliga alle iyo naxariistiisa, arrintaas ha ku farxeen mu'miniinta. alle wuxuuna amrayaa in aan faraxno, kuna faraxno fadligiisa iyo naxariistiisa. sidee ayaan u farxi weynay annaga oo haysana boqorka bixiya farxadda, midka gacmihiisa wax walba ay ku jirto allaah. dadka qaarkood waxay u maleeyaan in ay diinta islaamka tahay mid mashaqo badan oo adag, xujo badan. waxay iloobeen in uu alla leeyahay qur'aanka maanan u soo dejin in aad ku dhibaatooto, waxaan u soo dejinay waa farxad. sidaas ayay leeyihiin culimmada mufasiriinta ah. diinteennu waa diin naxariis iyo fudayd ah. ummaddana ilaahay kuma kalifin wixii ay awoodaan mooye. waxa aad camal samaysid abaalmarintiisa waad helaysaa, sida alle uu qur'aanka uu ku leeyahay, ilaahay kuma kalifin nafna waxay awoodda mooye. ilaahayna wuu ka dulqaaday wixii mashaqo ku ah muslimiinta, waxa uuna nala rabaa fudayd. alle wuxuu leeyahay, ilaahay wuxuu idinla rabaa fudaydka, mana idinla rabo culayska. nebiga farxadda tusaale waxaa inoo ah midka aan jecelnahay xabiibkeenna muxamed sala allahu calayhi wasallam. wuxuu ahaa farxad socota, waa midka adduunka baray waxa ay tahay farxadda dhabta ah. qof walba wuu ka farxin jiray, wuu la kaftami jiray, wuu u naxariisan jiray. dhoola caddayntuna waxay ahayd mid mar walba wejigiisa ka muuqata. cabdullaahi ibna xaaris wuxuu leeyahay, maan arkin cid ka dhoola caddayn badan rasuulka sala allahu calayhi wasallam. haweenay duq ah ayaa u timid nebiga sala allahu calayhi wasallam oo ku dhahday, rasuulka ilaahayow, ii bari allaah si uu ii geliyo jannadiisa. wuxuu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasallam, jannada ma galaan islaamuhu. markaas ayay laabatay iyada oo murugaysan oo ooynaysa. markaas ayaa nebiga dhahay, ma gelaysid adiga oo waayeel ah, ee da'daada ayaa la yaraynayaa. miyaanad aqrin aayadda qur'aanka, innaa ansha'naahunna inshaa'a fajacalnaahunna abkaara. annagaa da'yarayn habeenka jannada kana dhigi kuwa bikrooyin ah. saxaabiga jariir wuxuu leeyahay, nebiga imuu arkin inta aan soo islaamay, haddii uu i arkana wuu qosli jiray. waa rasuulka allaah. waxa uu haddana ahaa imaam, macallin, xaakim, qaadi, hogaamiye ciidan. sidoo kalena wuxuu ahaa aabba naxariis badan, nin u samafala xaasaskiisa, iyo saaxiib oofin badan balamihiisa. haddana isaga oo waxaas oo howlo ah ku guda jiray ayuu qoslayey oo kaftamayey, wuxuuna ku ducaysan jiray, allow waxaan kaa magangalay murugo. sababta naloo imtixaanayo. mar aan muxaadaro ka jeedinayay dalka Finland ayaa dhalinyaro waxay i weydiiyeen su'aasha ah, alla haddii uu inoo abuuray farxad, waa maxay sababta naloo imtixaanayo? waa maxay sababta aan murug u dareemayno? markaas ayaan aniguna weydiiyey su'aal, maxaa loo sameeyey gaariga baabuurka? soo ma ahan in uu socdo? haddii loo sameeyey gaariga in uu socdo, maxaa sidoo kale loogu sameeyey bareeg ama fariin? bareega soo kama horjeedo socodka? waxay ku jawaabeen dhalinyartii, gaariga si loo istaajiyo, haddii kale qofka shil ayuu ku geli karaa ama wuu ku dhiman karaa. qofka amnigiisa ayaa ku jira bareega. waxaan ku dhahay markaas, alle wuxuu inoo abuuray farxad, sidoo kalena murugta waan u baahannahay sababtoo ah. midka koowaad, shayga lama fahmi karo haddii uusan jirin wax kale oo ka soo horjeedo. tusaale, farxadda qiimaha ay leedahay lama fahmi karo haddii uusan jirin murug. caafimaadkana lama fahmi karo haddii uusan jirin xanuun. dhibaatadana lama fahmi karo haddii uusan jiri lahayn fudayd.
ibni aadamka nicmada uu haysto ma dareema ilaa marka uu waayo. midka labaad, xornimo iyo doorasho. haddii qofka farxad oo keliya lagu noolayn lahaa waxaa meesha ka bixi lahayd xornimada iyo doorashada ee alle qofka siiyey. wax walba sabab ayay leeyihiin. qofka bini'aadamka murug walba oo uu dareemo ama dhibaato walba ku timaada waa wax isaga gacmihiisa ku kasbaday. waxaa laga yaabaa in dembi uu sameeyey ama waddo qaldan in uu qaaday. qofka wuxuu haystaa xornimo in uu wanaagga sameeyo oo adduunka janno ugu noolaado ama xumaan kadibna maalin walba welwel ku noolaado. tusaale, qofku haddii uu lacag dayn ah qaato kadibna dayntaas bixin waayo, qofka lacagta ku lahaa maalin walba weydiinayo lacagtiisa, murugta qofkaas dareemaya soo ma ahan wax isagu gacmihiisa ku kasbaday oo doortay marka ugu horeeya in uu lacag qof kale ka qaato. midka saddexaad, guusha ma timaado haddii aan loo dhibtoon. qofka markii la imtixaanaya waxaa lala rabaa meel ka sarraysa halka uu joogo. waxaan ognahay in marka aan iskuullada dhiganayno ay tahay in aan marno imtixaano si aan u helno shahaado. waxaan samaynaa dadaal aad u badan si aan u baasno ama faraxno. alle wuxuu doonayaa inuu eego in iimaankeennu dhab yahay ilaa inta aan adkaysi leenahay ama in aan isdhiibno haddii waswaas yar shaydaanka xaggiisa nooga yimaado. ogow, imtixaan kasta oo alle xaggiisa ka ahaada waa mid khayr inoo ah. midka afaraad, qof adag. ogow, dhib kasta waxa ay wadataa faa'iido la eg ama ka weyn. xaaladda adag waxay kaa dhigaysaa qof adag waxayna kuugu kordhinaysaa caqli iyo xigmad aadan lahayn marka aad barwaaqada ku jirtay. midka shanaad, dembi dhaaf. alle qofka haddii uu jeclaado wuu imtixaanaa, sababtoo ah alle wuxuu rabaa in uu dhammaan dembiyadiisa adduunka ugu dhaafo si maalinta qiyaama marka uu yimaado jannada u galo.